daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkeeni kaftanka isboortiska oo cawaysin walba oo ahada aad ka daawan doontaan boggayaga aan ku leenahay Facebook. barnaamijkana waxaa si wada jir idinkugu daadiinaya luushaalu iyo anigoo cabdiqaadir boosa. dhanka farsamaduna waa cabdimaajid cusmaan. daawasho wacan. tababaraha xulka Farmaajo ayaa wacay wakiilka xidiga Cabdigari Qalbi Dhagax si uga dhaadhiciyo laacibkii hore ee Onol F uu dib ugu soo laabto horyaalka Soomaaliya. Macallin Farmaajo ayaa ka qoomameeyay in lacag u dhaafsaday wiilkaas ay Tigreegu saxiixiisa iyo tijaabadiisa caafimaad hal saac ku dhameysteen. Daaficii hore ee Onol F oo waraysigiiba shalay ayaa xusay in mar kale uusan xiran doonin maaliyadda xulka tan iyo inta uu joogo macallinkan Turkiga uga mahadiya foodiisa macmalka ah. diyeeshii hore ee xukuumadda xasan kheyre ayaa raaligelin ka bixiyay taakal uu ku galay nambarka 9aad ee wadajir cabdiraxmaan cabdishakuur. konton jirkaasi salaadii jimcaha ee masaajida daynila dartii loo faarujiyey ayaa eedda taakalkaasi ku sifeeyey shaxda macallin Farmaajo oo weerar ku dhisneed xilli ciyaareedkii ugu horeeyay ee lelinta xulka. rikoorkii aadan cadde iyo raaligelintiisii oo laysku daray ayaa wiilka la raadgal hareeri hal lagu saaraysa wadadii uu ku anan lahaa Bronadi Oro oo February 8 loo madnay. bare Farmaajo ayaa aakhir saac bedel lama filaana ku keenay xidigii hore ee Gurceel Cali Yare kaas oo kursiga keedka ku dhamaysan rabay qandaraaskiisa Villa Soomaaliya. laacibkan keligii u tababaranayay shaxdii xukuumadda ayaa cara darteed loo siiyay darajo uu isaga difaaco kuwa aaminsan inuu jikimo quraacda tababaraha xulka. madaxweynaha saaxiibkay ah oo ah shakhsi la saameyn weyn ayaa warqadiisii magacaabista u fawaadgareeyay group kasta oo WhatsApp maadaama uu aaminsan yahay in magacaabistiisii attentionka dadka ku maqneed doorashada Mareykanka. Twitter-ka ee FIFA ayaa loogu hambaliyay naadiga Daadmadheer ku guuleysigoodii horyaalka 30 jirsada ee Somaliland League. laakiin xiriirka ayaa dib u daawanaya kulamada qaar oo Feyenoord laga shiday si loo go'aamiyo natiijada iyo gool hayo injury ama dhaawac ah loo geeyay Sheekh Rusheeye maadaama saraakiisha caafimaadku u qaateen mid la sixray taasoo haddii ay cadaato meesha ka saari doonta in horyaalkaas lagu daro bogga caalamiga ee LiveScore. sidoo kale isla xiriirkan ayaa baaraya tiro taageerayaal ah oo xifaaltanka ciyaaraha u rogay jeegaan diid taasoo waxyeeli karta sumcadda naadigan buluug diid dartii aan ilbiriqsi cirka eegi karin. maxkamadda ciyaaraha Soomaaliland ayaa u yeertay lamaanaha Hodan Cabdiraxmaan iyo Mursal kuwaasoo sharaxi doona waxa ka jira in bogga Hodan Cabdiraxmaan lagu daabaco natiijooyinka kulamada saqda dhexe. bogga Hodan ee Facebook ayaa lagu qoray dhowr kal oo hore what a night, what a goal, what a free kick, taasoo haddii ay cadaato in gacmahooda ay ku qoreen ay mudan karaan ganaax iyo lacag. laakiin qareenka xidigaas ayaa ku doodaya in laacibiintaasi xaq u leeyihiin inay sharaxi karaan bandhiga kulamadooda derbiga. sidoo kale xidigta Qadra Slimo ayaa ka hor cadeysay maxkamadda in qudheedu ay gudbinayso ashtaka ka dhan ah erayadaasi ka baxsan anshaxa isboortiska. xidigtahani UK ee ku wargelisay wakiilkeeda inuu u fududeeyo la soo wareegida laacib ee ku qaado horyaalkii shanaad sanada soo aadan. 35 jirtaas make-upka ku aado suuliga maadaama ay aaminsan tahay in cadowgeedu badan yahay ayaa sidoo kale diyaar u ah inay dhinto mushaarkeeda iyo gunooyinkii ku xirnaan lahaa qaab ciyaareedkeeda. qandaraaskii hore ee xidigtan hibada leh ayaa ku ekaan doona 31 Diseembar taasoo wakiilku ku cadaadinaysa in gaab uusan u dhaxeen xilli ciyaareedkan iyo kan ina soo kulaalayaba. laacibka Dayaxdal Nuurshe ayaa ku wargeliyay immigration-ka in diiwaanka laga saaro sawiradiisii hore lana isticmaalo kuwiisa haatan maadaama safaradiisa qolyaha kontarool baasaboorada ay kala saari laayihiin jinsiyadda Soomaaliya Carab midka uu yahay. laacibkan markiisa qasacajiinka ayaa ka qoomameynaya in budada qofka u ekaysiisa Irishka uu yaraantiisii bilaabi waayay. laakiin 22 jirkaasi casir liiqi uun banaanka u soo baxa ayaa sidoo kale ku wargeliyay saaxiibkiis Cabdi Dhaanto in isagana uu codsan karo in meesha laga saaro sawiradiisii hore uuna isticmaali karo kuwiisa cusub ee sida shaatiga loo soo meenay. FA
Waqooyiga Soomaaliya ayaa u yeeray xidigaha fiska kaba yare iyo maandeeq kuwaas oo shucuurtoodu xakameyn waayay kadib guulaha Xasan Cali Kheyr uu ka sameynayo horyaalka. Laacibiintan ayaa mari doona tijaabo kaada si jirkooda looga baaro maadada maqaarismi taas oo qofka siisa energy jeclaysiisan ehelkiisa hoose. Ficiladaas oo lidi ku ah qawaaniinta kubadda cagta. Xiriirka ayaa laga yaabaa in aysan u yeerin fiska maadaama xilliga balanta ee 9 subaxnimo ay madaxa dhulka dhigto, laakiin labada kale ayaa muteysan kara ganaax adag haddii aysan soo xaadirin. intaas ayaynu kusoo gabagabayn doonaa barnaamijkeeni kaftanka sportiska. barnaamijkana waxaa si talantaaliya idinkugu soo gudbinayay luul shaaluuy anigoo cabdiqaadir boos ah. barta aan ku leenahay facebook ayaadna ka daalacanaysa inaan kudhigeenu waa lagu xanto lagu xasuusta ayaa ka horaysa. waa bahda barnaamijka oo isku duwanoo idinla gaashaankiina noolama keeno. muuqaalka ad arkaysaana waa heestii faisa iyo fanaanka dalmaryare. waana dooqa dhegaysta yaasiin cusmaan faro maleesiya daawasho waca. فايسة حبيبي عسكي أنت لاي حماك ومقولي فايسة حبيبي